أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، webkan waxaa ka baranayna waa madinaarabic.com. my youtube waxaa waaye Luqad Yar One. my facebook group waxaa waaye tafsiirka qur-aanka. waxaad kaloo igala soo xiriiri kartaa aan adminka ka mid ahay qolka qur-aanka. wixii su-aala waa ila soo xiriirtaa insha allah. okay, maanta casharkeena waa lesson 4 waan ku jirnaa weli, number 12 sida kor ku aragtaan arrowga maaragtay balarta waan maraynaa maanta insha allah. wuxuu ka hadlayaa darsu raabic aljumla alficliya, jumlada ficliya. waxaan hore usoo aragnay jumla alismiya. okay, jumla alficliya. jumla alismiya waxay ahayd mubtada oo magac ah waa inuu khabar lahaado. okay, jumla alficliya waa ficil, waa inuu faacil lahaado, wixii sameeyey ficilkaas waa inuu lahaado. okay, ficil waa faacil. haddaanad fahmin waa iska fahmaysa insha allah. ku cesho ama casharada hore xataa maaragtay isku xiran yihiin in haddii u laabato maaragtay maraajico ku noqoto isku day insha allah. okay, let's start maaragtay جملة فعلية. جملة فعلية. ذهب أحمد إلى الجامعة. ذهب مقع ما سو فعل بقبل هذا الجملة الاسمية. سهلا انت سملا استاذ مارتي. ذهب أحمد يا بحي، أحمد بحي وهو فاعل استقع سمي وحي ماركي فعل كها. ذهب وبحي أحمد وفاعل. اوكي. I don't know inuu cashirkan ka barkareynayo, laakiin laga yaabo qofka inuu ka fikiro maxuu maaragtay u kor dhawan yahay maaragtay oo fatxa u yahay. mubtada wuxuu ahaa dama maaragtay u godnaa. okay, dhahaba waxaa la yidhaha ficil maadi. ficil maadi u kor dhawan yahay waa fatxa. mabniyun cala alfatxa saasaa la dhahaa. I don't know naxwahay qawaacid kadib inuu maaragtay aan gaarnay. laakiin dhagaha xataa waa sii baranayn haddaa maaragtay kugu cuslaadan don't worry waa imaanaysaa insha allah. axmadu waa faacilkii marfuucun bidama. ila aljaamicati ilaadu waa xarfi jar, waa xuruuftii aan soo barana oo waxa ka yeelaya xarf ka dambeeya kasra ama hoos dhow. aljaamicati majruurun bilkasra ma garatay. anyway don't worry hadda naxwaha jumla alficliya ii kala garo iyo jumla alismiya waxaan noo iska imaanaan insha allah. خرج المدرس من فصل. خرج المدرس. خرج وبحي فعل ماضي مبني على الفتحة. يا بحي المدرس معلنكي بحي ما قرأتي وفاعل كي. اوكي، فعل ماضي يا بحي مدرس من فصل. فصل كي بحي من حرف الجر واي ده سواء كسر لو قلت فصل مجرور بالكسر. يعني حتى واسو حسوسنا long time waxaan dhigtay wixii naqtiin lagu sameeyo u baahan tahay tiyaado ilaahay maarto waa idin la barnaanaa ardaydan leh 1982 waxaan soo qaatay ma garatay. alxamdulillah. okay, next one. أكل أحمد تفاحا.
أكل فعل ماضي وعني أحمد يا عني أحمد وفاعلك تفاحا. هذا تفاحا ما وصلونه because حرف الجر كما هو الرأي وحل لها مفعول به مفتوح ما قالت وكل بين مفعول به مربوط كله إياه فتحتان. أوكي next one نحوها وإيمان دونا إذا قواعد أنا حتى مراجعة للصمينا ما قالت خرج ياسر من المدرسة. خرج وبحى ياسر إن كان ياسر الإرادة بحى وفعل ماضي مبني على الفتحة ياسر بحى ياسر ما قالت فاعل كواي مرفوع بالضم من المدرسة واصل طبعا بقص من وحرف الجر مبني على الفتحة المدرسة واصل بقص حرف الجر كهر مرة. ذهب الرجل إلى البيت. ذهب وبحي الرجل وفاعلك ذهب وفعل ماضي مبني على الفتحة الرجل نجيب بحي إلى البيت إلى هو حرف الجر البيت واصل منتهى بقص إلى هذا كون متأوجد مجرور بالكسرة تاسو كويجي عشان كنا ما انت waxaan soo baranay الجملة الفعلية أو هي فعلكنا وإنه فاعل لهذا هذه أن حرف الجر لهن مفعول به باي معناه معرتي ما قرأتي أو معرتي وحل سمي أكل الأحمد أحمد هو عني جملة ما نقولش أكل الأحمد أكل إيه هو عني تفاحا جملة وإن كاملة تفاح بعني ووحل عني مفعول به ووحل سمي ما قرأتي good okay anyway أحبي معرتي الناس اللي سألنا هتان كو سؤال قبت إلى سؤال كرتها كقوسن إن شاء الله من جد وجدني كده ذا لو هلا وعرفت هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.